5 qodob oo kor u qaada kalsoonida nafta. kalsoonida naftu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah bini aadanimada qofka. Caadiyan, qofka isku kalsooni waa qof jecel naftiisa, rajaynayana inuu u badheedho khataraha si uu u gaadho jeedooyinkiisa gaar ahaaneed iyo kuwiisa kaleba. qofka ku kalsoon naftiisu waa mid ka rajo qaba ama rajo taban ka qaba waxa soo socda iyo mustaqbalka. qofka ay ka maqan tahay kalsoonida naftu waa mid ka shaki qaba inuu gaadho riyooyinkiisa, waana mid aragti xun ka haysta naftiisa iyo waxa uu nolosha ku soo kordhin karo. haddaba kalsoonida nafta ma la horumarin karaa? dhisida kalsoonida naftu waxay u baahan tahay inaad abuurato adigu dabeecad wanaagsan oo aad kula dhaqanto naftaada iyo bulshada aad la nooshahay. sidoo kale waxay u baahan tahay inaad barato sida looga hortago ama loo xaliyo dareenada togan. si aad kor ugu qaaddo kalsoonida nafta waa inaad samaysataa hadafyo aad nolosha ka leedahay. waa inaanad noqotaa mid u badheedha khataraha si aad u gaadho meesha aad hiigsanayso. muuqaalkan waxa aan ku soo qaadi doonaa 5 qodob oo kor u qaada kalsoonida nafta. 1. cayimi ujeeddo yar dabadeedna gaadh. badanaa khaladku waxa uu ka imaadaa marka uu qofku isku dayo inuu dayaxa toogto. kadib guuldarada ka dhalata taasi waxa ay qofka dhexalsiisaa niyad jab. qoondayso oo dhigo hadaf yar ood og tahay inaad gaadhi karto amaba aad xaqiijin karto. kadib marka aad kaas gaadhid, dhiga mid kale oo yar. sidaas ku wad, waxa aad dareemi doontaa isku kalsooni gudaha ah oo kuu horseeda marka dambe inaad ku dhiirato ku fikiridda hadafyo waaweyn. waxaana la arkaa adigoo kuwaasna si yar oo fudud ku gaadhay. 2. naftaada daryeel. ku dadaalidda nadaafadda jidhkaaga, dharkaaga, waxa aad cunayso iyo goobta aad ku nooshahayba waxa ay wax weyn ka beddelaan habnololeedkaaga. marka aad u labisato si wanaagsan, naftaadu waxa ay dareentaa dareen fiican, waxaanad ku dhiiran kartaa wax aanad ku dhiirateen marka aanad ku qanacsanayn dharka iyo huga aad sidato. muhiim maaha inaad xidhato alaab qaali ah, laakiin ta muhiimka ay waxay tahay inaad u labisan tahay si wanaagsan oo aad markaasi kalsooni dareemayso. 3. u beddel fikradaha togan kuwa taban. caadiyan waxa uu qofku shaki kalsooni daro ah dareemaa marka uu ku fikiro ama iska dhaadhiciyo inuu yahay qof aan qaban karin hawl ama aan gaadhi karin waxa uu ku riyoonayo. fikradaha togani waxa ay qofka ka dilaan niyadda, waqtiga iyo enerjigaba. taas cakiskeeda, aqbalidda qofka aad tahay, rajaynta gaadhidda himilooyinka wanaagsan adiga oo raacinaya ficil iyo la saaxiibidda naftaadu waxa ay koriyaan kalsoonida aad naftaada ku qabi karto. 4. isku day inaad ogaato waxaad ku fiican tahay. waxa aan shaki ku jirin in qof kasta oo inaga mid ahay uu ku fiican yahay shay. 56% dadku waxay ogaadaan waxa ay ku fiican yihiin marka ay jiraan da'aha u dhaxeeya 18 ilaa 25. taasi macnaheedu waxay tahay in ku dhowaad kala badh dadka inaga mid ahi aanay ogeyn waxa ay ku fiican yihiin. qaababka ugu fiican ee loo dhiso kalsoonidu waa inuu garanayo qofku shayga uu awood dabiici ah u leeyahay, kadibna uu dadaal ku sii horumariyo. ugu dambayn, la tartamidda naftaada. isku day inaad la tartantid naftaada, sida tusaale ahaan inaad noqotid mid ka fiican kii aad ahayd sanadkii hore ama bishii hore amaba wiigii hore.